heeriyada maanta aan haysata hadii aan ka dhiman weyna ama aan iska ridi weyno isaanka kale maraka ah oo baanu leenahay war waxaan ku cabanaynaa waa waxa nala eega Somaliland ma diidanin laakiin Somaliland dugaag baanu aragnaa dadka yagii martabada iyo magaca lahaay 60kii wax soo qaaday sidaan u bal noo sii jiidaya nimankii odayaasha suldaanka iyo nimankii kale odayaasha ahaa u socdeen madaxweynuhu markii uu halkan yimid waraaq baa loo dhiibay waa ninkii waxa weeyaan in dhacade maxkamadaha Somaliland wixii ay gooyaan hadduu sharci noqon waayana de adduunku wuu wareeraya waayaanu maxkamadu waxaan aaminsanahay waxay gooyaan inuu sharci yahay wixii ay qof ku xukumaan kolku sharci noqdo wixii ka dhamaadana waa inuu siday u sharciga ahaadaan uu sharci u noqdo hadda laba wiil 17 sano dhaafsan muddadii la xukumay war waxaan u sheegayaa culimada Somaliland dadka wax garadka Somaliland waxaan u sheegayaa bila aadamka qof kaliya la dulmay buu ilaahay ummadu rogaa war inamada adalkoogii odayaashii iyo suldaanka yagii guud uu geeyay waraaqihii madaxweynuhu keenayba kama oran hadda 2 bilood iyo samtig baa la sugaya inamada de maxkamadiina ma haysato oo waqtigii baa ka dhamaaday warda cadaaladda Somaliland waa sidee soo inaan fahanna maaha ummadda kolka la xukumo 30 sanadood ba ha qaataane kolku 30kii ka dhamaado soo in xor u noqdo maaha inamadan maxaa loo haystaa wuxuu ka ag yaalay waxana waxa weeye wixii aan Soomaaliland ku lahaa waxana waxa weeye wixii qodobka saxna waa waxaan xaqba u lahaadii oo dal iyo dan iyo dooba ahaadii waxaan xaq u lahaayay horta ninka mulkiyagii ahaa waxa weeye waa banka Soomaal iyo Tagiga حق وحن نقولين هاي الدجاج يجي ووحى هذا الكيسو وحقولنا حق ولا حين لحد الكيس العقل كهرباء يجي وحن نقول هاين تيدك عجال الوايد كان مدحوين عجال الوايد كان يداعي مدحوين كحولين كانوا هاي رد حاج محمد بوها حاج إبراهيم عجال بوها يسوونه نكي على كيني بوها sida oo ay tahay waxaan ku lahayn dawladdii Soomaaliya ee aan ka goono aan ku tashanay laba wasiir iyo xildhibaan baan ku lahayn tii Cabdirashiidna waxaan ku lahayn laba wasiir iyo xildhibaanaan ku lahayn inta agaasime ama saraakiil ama ciiday ka badnaayeen waad ogtahay adigu waad ogtahay waan ka aqbalay waan goosanadii waanu ka yeel waan saxeexnay laakiin waxa isweydiin leh ma waxba la'aan baanu anagu kolkaas saxeexnay taana intaasan ka odhani waxa yaga masab waxaanu lahayn waan doonaynaa muusow waxaanu masab lahayn dawladdii Soomaaliya ku lahayn tani kulay waan doonaynaa waxaan mulki u lahayn dhulka yagii ahaana cidii uska geed kama ogolin dhimashaan ku naqaan labada qodob way iga sida ka saddexaadna waxa weeye lixba la geed bay xaalataaba leeyahay nimanka xidhan ama in dhacdaha noqdo ama kuwa kale xasuuqa halkan laga soo dalacay baa noqotay waan ku badanahay xariga deemka waa ima sadaqarade nama sadaqaro waxa weeye in dhacda 8 sano xukunna Soomaaliya oo dhan baa wada ogdii anagu qol ahaan mooyaan xisb ahaan uma taageersanintay hadduu xisbi ka socday xisbigiisii ma taageersan laakiin qolanimadan ugu hadlaynaa oo sheegaynaa oo aniga wixii la iga yeelahaaba waxaanadii waa 12 sano 12 sano waxa imika lagu ilowsan yahay 10kii sano la xukumay kolkay ka dhamaatay halka aan ku hay waan ognahay in ciidamada asluubtu ay soo gudbiyeen waarankiisii
maxkamadda inay gudbiyeen xeer ilaalinta haysatay inay yidhaaheen xeer ilaalintuna dee iyo taana waanu ognahay ee wax naga dheer oo naga qarsoon maaha codsigeeguna waa kii horeba taanu odayaashii sulaadidii kaaga codsadeen annaguna ka mid u nahayn madaxweyne dadka cadaalad baa deeqday ma deeqdo xukum qarqood qodobkaan rabo inaan anugu caawa ka hadlo aan xaggan uga fadhiisto jaaniskan waxa weeyaan saami qaybsiga run ahaantii saami qaybsiga madmadow fara badan baa ka muuqda waananu saluugsannahay haddaanu nahay beesha reer nuur anigoo ku hadlaya dhallinyarta reer nuur waanu saluugsannahay annagoo ah beel dee magaceega iyo mansabkayga iyo taariikhda ay leedahay la garanayo mana ogolaanayno waxaan leeyahay dowladda uu muuse bixi garwadeen ka yahay kaama baryayno oo kuma lihiin xilalnasii kaamana codsanayno laakiinse waxaanu kugu amraynaa oonu gar u leenahay xaqna u leenahay inaad dee tabashayadaasi aad eegto jawaab degdeg inaad ka soo bixiso dowladdani ama maamulkani ugu dambeeyey xisbiga kulmiye ee uu hogaaminayo ina biixi inay iska dhaga tirtay ama ay iska dhaga tirtay jiritaanka reerkani sababa qarsoon awgeed waxaa la ogsoon yahay oo aan ka wada dharagsannahay in beesha uu madaxweynuhu ka soo jeedo ay tahay beel ood wadaag la ah beelweynta reer nuur iskala markaasina ay xurguf deegaani ka dhaxayso aqbali mayno yeelina mayno haddii aan nahay aqoon-yahankii iyo dhallinyartii beelweynta reer nuur in deegaanadayada iyo xaqa aanu leenahay inaan somalilan ka helo in shaar dowladeed lanagu duudsiiyo haddii aan nahay beelweynta reer nuur mar labaad waxaanunan aqbalayn in mashruuca wajaale dhinaca deegaanka beelweyntu ay degto aanu ka soo jeedno in keliya la qodo oo hab shaadh oo dowladnimo lagu dowladeeyo waxaanu somalilan u sheegaynaa haddii somalilan cadaalad darro soomaaliya uga soo gooday maanta somalilan waxaa ka taagan wixii ay snm ka baxday maxamed xaashi cilmi nin la yidhaahdo wasiirkii maaliyadda ee dowladdii siiraanya ahaa baan maqlayay wuxuu lahaa xaqayagii baa la duudsiyey markaan xamar tagnay maanta wasiirka maaliyadda iyagaa haysta taliyayaasha ciidankana iyagaa haysta madaxweynaha dalkana iyagaa haysta annagu ma markhaati baan markaan nahay yeeli mayno aqbalina mayno waxaad ogtihiin foolxumada iyo ka muuqata degmada dila waxay caddayn u tahay raadkii dagaalkii sokeeye reebay gaar ahaan xukuumadda talada hayse ee snm qoys baa dalkan xakuma waana wax iska cad maanta nin kale somalilan la wada leeyahay way jirtaaye ku hambalye annagu somalilan la wada leeyahay ma arkayno mid dhulka shaar dowladeed lagu kala dhaco waad arkaysiin in degmada dila ayna adeeg caafimaad haysan inayna adeeg biyo haysan 10 milyan baa lagu bixiyay in arabsiyo biyo loo galiyo iska dagabiyo lagu dhaafiyo arabsiya lagu dhaafinaya annagu nidaamka dowladeed ee Soomaaliland ka jira ee uu ina bixiyo hogaamiyo waxaan u aragnaa mid reerkooga deegaanadooda loogu dhisayo isla markaasina shaar dowladeed loogu dhacayo waxaan ognahay oo aanu ka daragsanahay in dadkii lagu laayay wadada iyo dadkii Soomaal lagu qowracay dadkii dambiilayaashii u xidhnaa la sii daayay kuwa yagiyo muddo dhaafayna ay saldhiga dhexe Hargeysa ku xidhan yihiin jeelka Hargeysa waa sharcigii soo qaban waayay
dadka gacan gudhiiglayaashii dhibta ka geystay ee saldhigyada ka sii daayay waa sharcigee markaa sharciga madaxweyne Muuse Biixi anaga madaxweyne noogu noqonaya haddii lagu faanayo kalidii talisnimo iyo dawladnimo horaa dadkii ka xoog weyna ku soo dhaceen Qadaafi baad arkaysaa Xusni Muuse baad arkaysaa Mallas baad arkaysaa Cabdi Ilay baa u dambeeyay waxaan u soo jeedinayaa haddii fariimaha iyaga laga soo jawaabi waayo waa Soomaaliland ma maalmaha dabaaldega la wada leeyahay maalmaha manfaca maana la wada lahayn ninka shalay ku qadiyay ee xilku uu magacaabi waayay maanta muxuu dabaaldeg kaaga rabaa qarannimada 18 May uu ku soo koobatay in la xuso la wada doonayo war cidda wasiirka haysataa xusi sharciidan kaga hadlano tabashada beesha reer nuur ay ka tabanayso dawladda Soomaaliland waxaan horta ku horeysiinayaa waxaan taxsiin u dirayaa dadkii lagu laayay garadag iyo ceelaf weyn saraakiishii labadii sarkaale lagu laayay ilaa haddana aan waxba laga qabanin intaas kuwa nimankaasaan baaq u dirayaa taxsiin u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii ay ka soo jeedeen aan leeyahay taxsiin tiiraanyele oo beesha reer nuur dhalinyaradeedii iyo aqoon-yahankeegii iyo waxgaradkoogii idinka timid baan idinka taxsiyadeynana taasi haddii aan ka tago waxaan ku xujisiinayaa baaqii odayaashii beesha reer nuur ee ka hadlay wajaale degaamaynta iyo mashruuca tog wajaale ka hadlay ayaan mar labaad taageersanahay aan garab joognaa aan dhinac joognaa dhammaanna aan ku qanacsanahay go'aanka odayaashaasi haddii ay arintaasi wax laga qaban waayana waxa ku xigi doona ficil gacaneed oo aan kalaabasho lahayn dawladda Muuse Biixina waxaan u sheegayaa taariikhda nololeed intii ay Soomaaliland soo jirtay ama madaxweynayaashii ka horeeyay beeshani beel la qarin kara maaha beel aad ma garanaysaa aad duusii karta xaqeegana maaha waxaan u sheeganaa fartaad dhexda ka qaniini doontaa haddii aad tahay madaxweynaha haatan jooga ee talada dalka haya waan ognahay raggii taariikhda ku lahaa reer nuur ee isku xidhayay dawladda Soomaaliland iyo beeshan aan ka soo jeedno in cagtooda hoostooda la geliyay oo ilaa imika wax alla waxay meelay ku sugan yihiin iyo meelay joogaanba aanay jirin inta haddii aan kaga baxo dawladda Muuse Biixi iyo xukun xumadiisa waxaan u sheeganaa min Biitooni meel ka shaqeeya ilaa wasiir waa la naga xaaday kuna bariimayno maanta baaq ayagani bariyo maahan kugu bariyano ku leenahay war xil noogu magacaw aday dan ku tahay dad magacaabi weydo adiga Muuse waday dan ku tahay inta haddii aan taa kaga gudbo waxaan u sheegayaa mashruuca tog wajaale iyo tobagiisa dib ugu soo noqonaya mashruuca tog wajaale dadna laga gadbay dadna la yiri qota waxaan yeelana maaha intaan hore u yeelnay waxaan yeelano maaha waan ka dagaalamanaa ficil cad baan ka muujinanaa oo ummadda iyo adduunyaduba ay maqasho taa haddii aan intaa aan kaga gudbo waxaan u sheegayaa dawladda Muuse Biixi in badan baan dul qaadanay in badan bay beeshaan ka soo jeednaa u samirtay bal hadda eega waxa madaxweyne labadaas sanadood ay jirtay annagoo oo aanan ku calaacalayn annagoo dadkii codka ku diidaanahay oo horena ku garanayeen sababtaan codka kugu diidnay ahayd inaanu ma garanaysaa aqoon ku lahayn oo colaad sokeeyo oo dagaalkii sokeeyo ee SNMta ka soo jeeday aad noo hayso haddana waxaan lahayn warde malaha war ninku waa madaxweyne oo isbedeli doona oo isbedel baa ku iman doona waqtigan xaadirka way arag buu yahay jaarkiisu arkay waxyaabaha dababka ka baxaya caalamka iyo agtiisu og yahay Soomaaliland in la wada dhistay baan moodanay hana noogu darnaadaan kuwii abtiga noo ahay noo xigay waxaan la arki doonaa shalay waxa laga baqayay dabba ka baxay bariye bariiska la isaga talaaba oo ciidan caawa kula hadlaysa awdal iyo Soomaaliland isku xidha
biriishkii caawa waxay ku leeyihiin intaan hore u dul qaadanay biriishka aanu hayna la noogu dul soconayay la noogu dul socon maayo adaana dambarsan doona oo berri maalin maanta in bad farta dhexda ka qanuuni doonta mudana madaxweyne haddii ay wanaagu ku cuntami waay xumaanta malaha iyo tamarisee xumaan baad noogu imanaysaa maanta intii ka dambaysan nabadi way naga dhamaatay tallaabadaanu qaadnaana waxa weeyi cidna u daba fadhiisan mayna dhulkayagii dadkayagii la laayay waxba lagama qaban ilaa maanta kuwii laayayba xabsiyada laga sii daayay caaw waxa isku kaaya keenay waxa weeyi ma odhanayo anagu waan cabanaynaa laakiin waxaanu saluugsannahay xukuumadda Muuse Biixi waxaanu ku saluugsannahay xilalka sare iyo xilalkii hoosaba dhammaantoodba waa la naga xaaqay haddaan nahay beesha reer Nuur waxaanu leenahay madaxweyne Muuse Biixi xukuumaddaada beesha reer Nuur way saluugsan tahay mid sare iyo mid hoosaba waxaan baaq u dirayaa dhammaanba dhalinyarada reer Nuur waxa isweydiintu mudan tahay waxa maanta caawa halkan iskugu kaaya keenay waxa weeye dareen aan ka damqanay saluuga iyo xilla'aanta ay ka maran yihiin beeshu xagga horumarka xagga shaqaalaysiinta iyo xagga kuraasta ay taladu ka go'day waxaan leenahay waa xukuumaddii ugu horeysay beeshu de wasiir ka weydo waana beesha ugu badan gobolka Awdal anaa dadkayga u nool midaan dadkayga u leeyahay waxay tahay rag baa rag laayay jeelasha laga sii daayay ilmaadeeraday jeelka lagu daayay waliba muddo dhaaf haw sidee macquul ku noqon kartaa war Somaliland waa insurance Somaliland waa insurance lagu wada jiro nin walbana meel buu kaga jiraa Somaliland waa dalad guud oo ina midaysa min laas caanood ilaa loo yacdo laakiin nin walba dalada meel buu kaga jiraa anu dalada reer Nuur baan kaga jiraa insurance reer Nuurnimaan ku jiraa maanta haddaan wax noqdo dawladii dagaalamaysa ama ay daweynaysa ma jirto aan tolkay yahayn inaan ninka tolkay ka damqada dhibtiisuna waa tu waajiba waa faral waana muqaddas aniga saaran waa tu aanan inooga gabanayn waxaan si buuxda cod dheer iyo cod gaabanba ku taageerayaa baaqa ka soo yeeray odayaasha aabayaasheeya hadday iyagu baaqi iyo taladii keeneen war xoogii lagu fulinayo waa annaga looma kala cabsoonayo dhulkayga haddaan ka rabnaa jawaabtiisa Somaliland waa markii ugu horeysay eenu aragnay annagu intaanu garaadaysanay Somaliland oo ka maqanahay miiskeeda siyaasadda haddaad noo aanaynaysaan qiil kalena warday raggamada miiska loo soo dhigaayo noo soo dhaha war waxaasaanu idiga saarnay dawladda Somaliland mucaarad baanu ahayn laakiinse muwaadiniin xaq leh baanu nahay xaq baanu u leenahay dalkan dhismihiisii iyo dhimashadiisiiba annagoo leh maanta inaynu weyne xaqeygii Somalilandnimo ma sadaqayno maanta inay tiraahdo waxba naga maqan beesha ugu goob doorasho codeynta badan leh gobolbeedka Somaliland oo dhan inay tiraahdo maanta waxba naga maqan war waayaan darade Muuse halku ka garan waay war goob doorasho codeynta Awdal oo dhan marka la yiraahdo laba meelood meel ahaan baan leeyahay ana ugu goob doorasho codeyn badan that means ana ugu dad badan waxaan tirada codka inta leegis goobaha sanaadiiqda inta leeg ku helay war waa dadkayga dadka inta leeg hadaad leedahay Muuse maanta xaq uma lihidin inay din xil qabataan ama sandalada dawladnimo waxba kuma lihidin niyo geedkeedii garteediina fariisi ama Samaroon ahaan ama reer Nuur ahaan 2009kii anagu aad baan u sii anagu dhalinyar sii yar baan laakiin inta naga waaweyn aad bay wada ogeyd waxa lagu gowracay dariiqa dhalinyar waxa lagu odayaal ragii hal doorkii gobolka ayaa dariiqa inta loo istaagay lagu gowracay subaxnimadii taliyay markaa ciidamada haystay muu tagin halkii rag lagu gowracay laakiin isaga iyo ciidamada oo tibo waxay yimaadeen halkan gobolka Awdal oo magaalada Boorama duleedkayga la keenay waynu ogeyn markii ay mudaharaadnay intii rag haddana inaga dhimatay mudaharaadkii welina imika weli meel lagu hadal hayo oo taariikhda lagu soo hadal qaaday weli ma arag